بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما تودي سلامي ما أنت حسكو دينا إن شرحنا application هذا WhatsApp autoresponder كاسو شقيستاي إنه كفل اليو فريمة كسو قاريا أديقو أديقو كجوابي فريمها isagu iski uga jawaabayo marka waxa sameynaysi marka horeysa Play Store-ka ingelina waxa ku qoraysiin WhatsApp autoresponder ay ku qoraysaa WhatsApp autoresponder inta marka ku qortay search taabasa kadibna waxa ku dulfaansa application-ka waxa leeyahay application fara badan oo iyaguna soo kale ka jawaabo fariimaha waxa kamid ah WhatsApp, Telegram, Messenger, Instagram, Viber iyo Signal iyagana WhatsApp-ka kale uga jawaabaya fariimaha marka wala soo dii kartaa laakiin maanta waxa sharaxnaa WhatsApp autoresponder install baaransa wasugaysa intuu soo install garanayo marka uu soo install garayo waxa taabanaysaa halka ay ku qoran tahay open kadibna app-ka ayuu ku dhex keenayaa get started baad taabanaysaa kadibna xagaas allow oranaysaa halka rood cancel baad siinaysaa waxaa kadibna setting-ka ayaad tagi kartaa waxaad bedelaysaa version-ka WhatsApp-kaaga haddii uu GB yahay haddii uu business yahay kolba wuxuu yahay amaba anywhere oranaysaa dhammaan imkaan WhatsApp baan ka dhigtay soo kale waxa ku xiran kartaa application-kan password si aad kaligaas u furi kartid kaliga halka yarna waxa ka eegi kartaa hadhow tole ku tijaabinaysaa markaad ruleska samayso balasta taabanaysa marka waxaan ku soo darnaa rule waxa qoraysaa message-ku qofku soo diri karo halkan rule-kan wuxuu ka saarayaa haddii fartu waaweyn tahay haddii fartu yar tahay sida kale hello yar hadduu qofku soo qoro annaad hello weyn aad gelisay meesha oo iska caadi kadibna waxa ugu jawaabaysaa kale welcome soo dhawaad ugu jawaabaysaa qofkii adoo waxa doonta ugu jawaabi kartaa kadibna hoos baa soo soconaysaa ma fariintan ma hadii individual-ka soo gaadho qof quraata mise groups mise labadoodaba individual ama ka doontaada ka dhigo halkana specific contacts oo ku jawaabayo application-ku ku jawaabayo oo contacts-kaaga dad qaar gaar ah aad rabto inuu jawaabo oo sameyn kartaa oo waxa u dhaxaysiinaysaa hakad soo kale ignored contacts-kuna iyaguna xawaaji kuwa uu u jawaabin haddii ay fariinta hello iyo kale imika inuu gelinay ay u soo diraan ma jawaabayo kuwana marka labadooda waad gelin kartaa marka halka haddii aanu ka noqono +252 iyo kale imika gelino ama plus quraata oo xidig raacsan tahay +252 xidig yar ay raacin kadibna wuxuu jawaabayaa number kasta oo inta ku bilaabmaya oo fariin ku soo dira fariinta hello inuu ka soo gelino haddii kale plus xidigta watana waa number kasta aan kuugu jirin ama +44 ma noqdo ama plus wax kale soo kale haddii aad doonayso in group-yada aad ka jawaabto fariinta uu soo diray tusaale group ku jirta fariintan imika soo gelinay hello ayaa la soo diray group-ka magaciisa gelinaysaa halka contacts-ka specific ah ignored-kana sinu sheegnay iyagana waxaad gelin kartaa magaciisa sidii specific oo community waxa laakiin muhiim ah inaad hakad u dhaxaysiiso halkan hoose waqtiga aad rabto inuu rule-ku ku joojiyo
hawsha ayaa gelinaysaa inoo kale 30 second ka bacdi message-ka markuu qofku soo diro waxba ka jawaabin oo kale hadda joojiso weji kadibna imika rulkaas tijaabinaa hello halka ku qornaa hadda hello yar iyo hello inta qorto uu ka jawaabaya welcome soo dhawo ka markii ka jawaabay balado imkana WhatsApp-ka ku soo tijaabino imka qof ayaa u dirnaa hello ayaa u diraya numberkayga ay message-kaasi kale kadibna uu jawaabaya marka uu soo jawaabaya ka welcome soo dhawo rulka labaad isna waxa weeye ama sharciga labaad waa in similarity match baa waa rulka ku xiga kadibna sax ayaa saaran saarta rulka kadibna waxa qori assalaamu calaykum oo kale imka kadibna qofku wuxuu soo qori karaa assalaamu calaykum oo eedo ay yartahay uu soo qori karaa 2 baanasa assalaamu calaykum eedo yartahay ama arabiga ayuu haduu soo qoro qofku imka kale arabigeedu ugu qorayso assalaamu calaykum saddexda qofka haduu soo qoro waxaad ugu jawaabaysaana halkaas ku qoraysaa halkaasna specific ignore contacts direct oo gashan kartaa nimka cid walba ayaan rabaa inuu jawaabo kadibna rulkaana saasin ku tijaabinaa WhatsApp-ka ku noqonaya waxaan qorayaa assalaamu calaykum oo carabi bal wuxuu ku soo jawaabo وأركيسين وعليكم السلام بكسو جوابي haddaan geliyo assalaamu calaykum tii yarayd la soo gaabsanay وعليكم السلام بكسو jawaabay haddaan assalaamu calaykum taasun eeda aan yareeyo waa la mid iyaduna saddexdooduba isku wax buu kusoo jawaabay marka application-ku waa ka wuxuu ka caawinayaa marka mashquulka too kale ama habeenkii marka hurdo inaad dadka wajis jawaabto hadaba haddii aad rabto inaad shaqada ku joojiso application-ka waxaad taaban buttonka araarka sare ku yaal oo waqtiinaysaa haddii rabtidna warshadaysaa ruliskana sidoo kale calaamada dhakhtarka dul taabanaysaa haddii rabtidna joojiso haddii aad rabto inaad delete gareysana hareer baa u jiidaysaa application-ka sharxiisu intaas ku dhan yahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.